lagu soo arkay maamul goboleedyada oo hadda aan aaminsanahay anugu dadkii federaalka ku jacjacsan ma ahayn, laakiin markaan arkay guddoomiyaashii la magacaabayo in xamar guddoomiye aan ku habboonayn meeshii loo magacaabay, in la iska magacaabayo iska fududahay in qof influensigiisa loo magacaabo, in dadku maamuladooda yeeshaan oo iyagu soo magacowdaan, runtii aad baan u soo dhawaynayaa. sababtoo tahay waxaan ku aragnay xamar oo kale xaggana tegi lahaa. marka waxaa dhacday in guddoomiyihii gobolka banaadir oo ku dhawaaqay inta soo arkay dhul qurxoon oo maamul leh oo maamulkiisii amnigiisii sugtay, markuu inta maaragtay laabtiisii hiir kacay oo damcay inuu tiigsado wuxuu soo arkoo qurxoona in qaraf la siiyo la gowraco. arrintaas runtii aad bay nooga yaabisay. dadkaasi waxay yidhaahdeen waxaana dhibay kala qoqobnaanta, waxaana dhibay madaxweynayaasha tirada badan, waxaana dhibay calamada tirada badan. allaha hadduu alla yahay oo nin islaam ah tahay madaxweynow, dowlad midaysan oo centralized aan rabnaa. now ikaadi centralizationku macnaheedu ma aha sida hadda walaalkay u fasirayay in gobernatore iyo maxaa la yiraahdaa DC laga magacaabo xamar maaha. waxa weeye devolution dalkan u baahan. devolution dowladda Ingiriiska bilowday in gobol walba la yiraahdo maamuladaada hoose dooro, laakiin maaha madaxweynayaal 200 madaxweyne tartib adduunka baan ugu wareeray. ma maqlaysaa iyo calamaan aan garanaynin. dalkan hal la xoojiyo ما هذا قول كم يوكاد gobolka banaadir caasimad Soomaaliyeed weeye lagamana dhigi karo meel muxuu ahayd calan gaar ah iyo baalkii mucaaradka qaar wadanka waa u bixiyaan haddaynu kursiga asiga uusan joogin wadanka inuu bixiyo diyaar u yahay soo kursiga ugu qaado leanna dawlad joogta 9 bilood 8 bilood dawladdii xasana waa aragnay tanna waa aragnay dawladda iyadoon sanad gaarina la mucaaradaya ciidan waxay tahay wax ma arkin oo aanan sax ahayn. fariinta labaad waxaa waaye federaal waa diideen shacbiga puntland. dawladda puntland ayada naftirkeeda qudheeda federaal ma aha leanna dawladda hoos uma dejinin maamulka gobolada hoose iyo tuulooyinka madaxweynaha magacaaba. marka runtii inaan isku sheegna fiican shacbiga Soomaaliyeed cudur uusan qabin daawadiisa hadii la siiyo ku jirana dawladdu waxay u baahan tahay devolution of powerka hoos in lagu dhaweeyo dadkii adeega uma baahno madaxweyne gobol oo la haysta madaxweynaha go'aankii siyaasadeed ee arrimaha dibadda waxyaabahan ka hadleen xaqiiqda saas iyo mucaaradnimadiisa ay ku eg tahay kursigaas aan tago markuu tago madaxweynaha wuxuu ku mucaaradayo sameeyna. marka mucaaradkan waxaan kula talin lahay markaan inaan kala kasno annaga waxaan ku jirnaa dawlad dib u heshiisiin iyo dawlad dib u dhisidana waxaa waaye in ummadda dhan ay gacanta isqabsato in la heshiiyo in markii wax la isku sheegay laakiin dawlad isburburin oo dawlad kale u shishay u soo wadanayso mucaarad oo qancinayo ama xambaarsan mashaariic ajnabi ah. anaga akademigaana ma ka xishoona siyaasadda diblomaasiyiin hadaatiin idinka anaga akademigaana researchers macallimiinana runtii markaan idin sheegno mucaarad aniga aan ku tilmaami karo oo cilmiyeysan oo Soomaaliya joogo maanta ma aan arag wili. mucaaradka waa mucaarad ku daaban gacan shisheeye ama gobol ha aata ama ka banaanaato. marka mucaaradka waxaa looga baahan yahay inay ka xishoodaan gacanta shisheeye. marka mucaaradku waxaan ka rabnaa inay dawladda wax la dhisaan meesha ka qaldan u tilmaamaan meesha ka saxayna ka saxaan.